السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارta sharafta Allah oo meel walba aad dunida ka joogtaan waxaa idin rajeynaya inaad nabad ku sugnaataan barnaamij waxaan idin hayaa maanta toddobaadyadaanba baraha bulshada aad loo hadalhayay barnaamijkaasina wuxuu ahaa kiin cayde iyo Coco Bole labadaasiba waa dhalinyaro ku nool dalkaasi Malaysia waxayna aad u isticmaalaan dhalinyaradaasi aan magacyadooda soo sheegay YouTube-ka dad aad iyo aad loo yaqaano caan ku ah wayaan sidaan wada ogsoonnahayba haddaan Soomaali nahnay waa iska dhib badannahay haddaba kiin cayde iyo Coco Bole baa waxaa la iskugu riixayaa in xiriir ka dhexeeyo ay nolol wadaag naqan doonaan walow labadaasiba ay beeniyeen ayna sheegeen in waxba uusan ka jirin ay yihiin dad asxaab ah walaalo ah YouTube-kaasna iskugu yimaado haddaba waxaan rabaa inaan u sheego dadka baryahan shaqo ka dhigtay labadaasi dhalinyaro inay Allahooda ka yaabaan waxaysan hubinna ay faraha kala baxaan aysan sheegin maadaama labadan dhalinyaraba aysan jaceylkoodii iyo xiriir inuu ka dhexeeyo aysan sheegin aysan caddaysan waxaa qalad ah in lagu mashquulo laba ruux oo waxba aan ka dhexaynin asxaab caadi ah in la isku riixo xiriir iyo jaceyl aan ka dhexayn hoosta la iskaga wada geliyo haddaba labadoodiba waa dad aad u afgaaban taasaana waxay keenaysaa dadka views ka raadinaya ama like ka raadinaya ama subscribe ka raadinaya oo suuqi ku xumaaday in labadaas qof oo aamusan ay ka dhigtaan shaqo say views badan iyo like badan iyo subscribe badan ay u helaan haddaba taasi ma shaqaynayso Coco Bole waa gabar dhalinyaro ah wax baratay cilmi badan maasha Allah hadal gaaban aan dhacdhac badnayn taasna waxay keenaysaa in dadka views raadiska ah ay ku mashquulaan sidoo kale kiin cayde waa wiil dhalinyaro ah arday ah wax baranayo dalka Malaysia wax ka barto asna wuu afgaaban yahay taasaa waxay keenaysaa in views lagu raadsto laakiin waxaan leenahay dadka views ka raadsanaya meel kale aad views ka raadsataan wax wanaagsan views ku raadsade dadkaani asxaabta caadiga ah ehelka walaalaha Soomaalida faraha aanu ka qaadno inta barnaamij la mid ah aan ku wada kulmi doono asxaabta sharafta Allah meel walba aad dunida ka joogtaan waxaan idin rajeynayaa nabad qaab iyo inaan bulshada amaan ay naga hesho meel walba ay dunida ka joogaan markaad adiga ixtiraamto bini'aadinka baa adna lagu ixtiraamayaa laakiin hadaad ixtiraam raadinayso dadka kalena ma ixtiraamaysid isma keenayso khiyaaray aad baad u mahadsantihiin سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.